ciidamada Ruushka ayaa xoojiyay duqeymaha ay ka geysanayaan gobolka koonfureed ee dalka Ukraine iyagoo rajeynaya inay si buuxda gacanta ugu dhigaan magaalada dekedda leh ee Mariupol waqtiga loogu dabaaldegayo maalinta guusha iyadoo colaadda ay gashay maalintii 47aad iyada oo saadku uu sii yaraanayo dhaawacyada aan loo helin dabo iyo meydadka oo isdul saaran dagaalyahanada ku xaniban warshada birta ee go'doonsan ee Mariupol ee Ukraine ayaa u dagaalamaya in ay sii haystaan iyadoo ciidamada Ruushkuna ay doonayaan inay gabi ahaanba la wareegaan gacan ku haynta Mariupol faahfaahinta ku saabsan difaaca ugu dambeeya ee jilbi isku dhigashada iyo dadaalada quusta ee lagu doonayo in lagu daryeelo dadka dhaawaca ah askar badan ayaa ku sugan xaalad halis ah isbitaalka waxay ku dhaawacmeen dawo la'aan cuntadii iyo biyihii ayaa ka dhamaanaya ayay tiri Titrenko oo ninkeedii iyo asxaabtiisa oo ciidan ah ku xayiran warshada Azovstal oo si joogto ah xiriir ula leh dadka ku jira gudaha warshada Ramzan Kadyrov oo ah madaxa jamhuuriyadda Ruushka ee Chechnya ayaa sheegay in askartiisa ay la wareegeen inta badan magaalada Popasna ee bariga Ukraine halka saraakiisha Ukraine ay sheegeen in dagaal ay ka wadaan magaalada ku taal bariga dalkaasi bartamihii bishii Abriil ciidamada Ruushka ayaa weerar cusub ku qaaday inta badan cirifka bari ee Ukraine iyadoo qaar ka mid ah weeraradii ugu xoogana ay ka dhaceen dhawaan agagaarka Popasna ee gobolka Luhansk dagaalyahanada ciidamada gaarka ah ee Chechnya waxay qabsadeen inta badan Popasna Kadyrov oo inta badan isku tilmaamay inuu yahay askarta cagta ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku qoray qoraal uu ku soo qoray abka fariimaha ee Telegramka wadooyinka waaweyn iyo degmooyinka dhexe ee magaalada gabi ahaanba waa la nadiifiyay Shiinaha ayaa si dhow u daraaseynaya duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine waxaana ay u badan tahay in ay wax ka bedelayso qorshaheeda fog ee ku aadan in ay gacanta ku dhigto Taiwan iyadoo lagu saleynayo casharada laga helayo dagaalka ka socda Ukraine CIA ayaa tiri sida iska cad hogaanka Shiinaha wuxuu isku dayayaa inuu si taxadir leh u eego casharada ay tahay inay ka soo qaataan Ukraine ee ku saabsan amnigooda ku saleysan Taiwan agaasimaha CIA Bill Burns ayaa sabtidii ku sheegay shir jaraa'id Burns wuxuu sheegay in uu u maleynayo in Beijing ay la yaabtay waxqabadka liita ee ciidamada militariga Ruushka iyo sidoo kale iska caabin adag oo uga imaanaya dhammaan bulshada Ukraine waxaan u maleynayaa in ay arkeen habka gaar ahaan ee isbahaysiga Transatlantic ay isugu yimaadeen si ay ugu soo rogaan cunaqabateyn dhaqaale ee Ruushka gardaradaas awgeed ayuu sii waday Beijing waxay wax ka qaban weyday xaqiiqda ah in waxa Putin sameeyay ay tahay in la isu soo dhaweeyo dadka reer Yurub iyo Mareykanka ayuu yiri waxaan u maleynayaa in hogaanka Shiinaha uu si taxadir leh u eegayo waxaas oo dhan qarashyada iyo cawaaqibka ka dhalanaya dadaal kasta oo xoog loo isticmaalo si loo xakameeyo Taiwan waxay ku hoos nooshahay hanjabaad joogto ah oo kaga imaanaysa Beijing taasoo u aragtay jasiiradda dimuqraadiga ah ee iskeed isku xukuntay inay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda oo ay mar kale la wareegto si xoog ah haddii loo baahdo Shiinaha ayaa cadaadis ku saaray Taiwan tani markii Tsai Ing-wen loo doortay madaxweyne 2016 iyadoo u aragtay jasiiradda inay tahay qaran madax bannaan oo aan ka tirsaneyn dhulalka Shiinaha